aad iyo aad baa u mahadsantihiin. ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay waxaan u soconaba munaasabada gabagabadeedii baynu ku dhownahay. Panelkii ugu dambeeyay waxaad u soo samirtaanba haatan waxaa hareerahayga fadhiya dumar culus, waa dumarkii ururada iyo waliba warbaahintii oo isku duuban. waa markaa dumarkii arrimaha bulshada dhammaystiran intana ka turjumaysa caawa halkan fadhida. waxaynu ka hadli doonaa wada sheekaysi ku saabsan caqabadaha haweenka iyo ururada iyo dhanka sharciga markaynu ka eegno waxyaalaha ay ka qabtaan si guud ururadan hareeraha fadhiyo waliba gabdhaha dhalinyarada ay hogaaminayaan. inagoo marar badan ku caaban jirnay caqabadaha haweenka dhalinyarada doorku ma laha. caawa halkan waxaa fadhiya dumarka dhalinyarada dhammaantood matalaya ururo oo Farduus Maxamed Dheere Siraad Initiative ka socotaa, Sagal Beeldeeq oo ah gabadh wariye isla markaana ka tirsan boardka Solja ururka suxufiyiinta Somaliland. Ifraax waxay ka socotaa Nafis, Lucky Somaliland Women Resource Center bay iyaduna gudoomiye ka tahay. mardo haddaynan su'aalahan ku furi lahaa waxaan u malaynayaa aad bad u garaaci lahaydeen waqtiga ay hay'ad dartii gabdhaha dhalinyarada aan ku faraxsanahay in imika ay hogaaminayaan ururadii haweenka iyagoo kuwa kala badan ay jiraan. dhinacan Farduus baan ka bilaabi doonaa. Farduus Siraadna way ka socotaa dhanka sharciga qayb bay ka tahay. Farduus soo dhawow. su-aashaadu waxay noqonaysaa ururada bulshada iyo qareenadu maxay ka qabtaan tacadiyada ka dhanka haweenka. martida qaaliga caawa halkan nooga timi si gaara oo sharfan waxaan halkan ka salaamaya una mahad celinayaa Marwo Faadmo Siciid oo waqtigeeda qaaliga caawa inoo soo hurtay. Marwo aad iyo aad baad u mahadsantahay, waanaan kaaga mahad celinaynaa. hablaha panelka la fadhiyana waan mahad celinayaa yar Naciimo oo daadiinaysa barnaamijka. intaan ka bacdi haddaan su-aasha ku soo noqdo ururada bulshada gaar ahaan ururada hablaha qareenadii hogaaminayaan maxay ka qabtaan tacadiyada hablaha Somaliland la kulmaan. wata su-aasha waan filayaa Naciimay laba meelood baan ka soo gali karnaa. dhinac waxaan ka soo gali karnaa dhinaca ururada oo anaga platform sameynay waxaan sameynaayo kale advocacy waxa la yiraahdo ururada rayidka ama ururada bulshadu waxyaabaha ay qabtaan si guud haddaan idinku yara sharaxo waxa weeyaan inay bulshadu halkay wax ka tabanayaan inay tooshka ku qabtaan oo yiraahdaan xukuumadda ama dadka talada haya baarlamaanka golayaasha kala duwan inay tusaan halkay dhibaatada ku taalo. anagu waxaan ku hadalnaa afka hablaha Somaliland. marka advocacy waan sameynaa, dawladdan wuxuu sheegnaa baarlamaankan la hadalnaa, sharci dejinta golayaasha waxaan la hadalnaa kala duwan ee xukuumadda. anagoo u sheegaynaa habluhu maxay ka cabanayaan, maxay tabiyaan, maxay rabaan, caqabadaha ay la soo dirtaan maxay yihiin. hablaha looyaradii maxay qabtaan baa iyaduna meesha imanaysaa. dee maxkamadaha aad aragteen ee maxkamadda sare leh, maxkamadda degmada leh, maxkamadda rafcaanka leh, maxkamadda gobolka leh oo ah maxkamadda ugu hawsha badan Somaliland. habla idin jooga dhinacyo badanna habluhu way ka soo galaanoo mar waa kaaliyaal oo iyagaa dacwadihii noo diiwaangeliya, marna waa xeer ilaalin oo iyagaa qarankii matalaya oo dacwadihii qaranku dhibanaha ka ah hablaha xeer ilaalintaaba geliya. inamiya habluhu way galaan laakiin hablaha waxay galaan dacwaduhu habluhu ay had iyo jeer cabanayaan waayo inan baa inan fahmi karta, inan baa inan dareemi karta, inan baana inan xog waraysan karaysa. marka hablaha xeer ilaalinta caawa waanu yeernay runtii noomay marina way naga yara cudur daarteen xilli dambe waanu mahad celinaynaa. sababta nagu yeernay caawa waxay ahayd inaan ku nidhaahno kaalinta muhiimka bulshada Somaliland ugu jirtaan waan ognahay waad mahadsantihiin. sidoo kalena waxay habluhu maxkamadaha ka qabtaan qareemid ama u doodid anagoo mararka qaar bixinaa kiis miskiin oo siina hablaha ama haweenka ama hooyooyinka cabanaya kiisaskooda aan ugu adeegno si bilaasha si ay u helaan cadaaladii ay tabanayeen. marka anagu marna maxkamadihii baanu idin joognaayo idinkaanu idin hadalnaa, mar kalena waa nagan advocacy-ga samayna ee codkiinii gaarsiina golayaashii ahayd tabashadiinu inay gaadho. marka intaasaan kusoo koobaya walaa aad iyo aad u mahadsantahay Farduus. sagal oo dhinacay fadhidaan kusoo noqonayaa. sagal waxay ka mid tahay hablaha wariyaasha Somaliland dhanka tacadiyada dumarkana aad uga hadla ama dhanka dumarka sheekooyinkeeda ay badnaayeen. haddana waxay ka mid tahay ururka suxufiyiinta Somaliland boardka ugu sareeya. saxaafaddu sagale door noocyo ayay ka qaadataa marka loo eego dhinaca yareyntan tacadiyada ku dhaca haweenka ama ay la kulmaan. aad baa mahadsantiin dhammaantiin. waxaan u mahad celinayaa hablaha quruxda badan ee kulankan nagala soo qayb galay ee ugu horeyso Marwo Faadmo Siciid oo markasta aynu casuuno heegan inoo aad iyo aad baa mahadsantahay. waxaan sidoo kale si gaar ah ugu mahad celinaya inanka qoraaca xafidda la joogo marka laga reebo inamada sawirqaadayaasha iyo inamada kale ee shaqada inoo haya
dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa nicimo marka laga hadlayo tacdiyada ku dhaca haweenka ama dadka nugul saxaafaddu qayb muhiim ay ka tahay sababtoo ah iyadaa report garaysa oo gaadhsiisa dadka siday wax u dhaceen waxay tabinaa kiisas badan oo la xidhiidha tacdiyada dadka nugul ku dhaca laakiin su-aasha waxa weeye sidii loogu talagalay ma u tabiyaa saxafiyiintu hadday su-aashaasi soo noqoto saxafiyiintu waxay u baahan yihiin inay helaan tababaro ku saabsan sida loo tabiyo sheekooyinka la xidhiidha tacdiyada waxaa laga yaabaa mararka qaar saxafigu inuu qofka isagu dhibaateeyaba qofkii dhibanaha because siduu sheekada u tabiyey marka iminka tusaale ahaan ururka Soljeeg ka tirsanahay hadda waxaanu aad iyo aad ugu dadaalnaa wariyaasha inaanu ku tababarno bal in laga warramo sheekooyinka la xidhiidha tacdiyada oo qofkii wariyaha lagu tababaro haddaan tusaale usoo qaato anigu berigii hore waxaan jeclaa inaan tabiyo sheekooyinka tacdiyada la xidhiidha gaar ahaan kufsiga waxaa jirta beri sheeko aan tabiyey xuquuqda aadamahoo dhan way igu qabsadeen waxay igu lahayd saa u tabisay may ahayn sidii saxda ahayd laakiin anu maalinta waxaan soo arkay inaan sheekada u tabiyey sidii saxda ah waxaa ku jirtay sheekada ilmihii dhibanaha ahaa ee la kufsaday magaciisoo saddexan marka waxaa la igu yidhi magaciisoo saddexan baad tabisay weligeedina taa kama hadhaysa waa tii la kufsaday sababta ah magaceedu saddexan baad tabisay laakiin aniga maalinta waan dadaalaya waxaan u arkayay inaan tabinayo sheeko inan yar oo lagu tacadiyey oo la kufsaday oo xaqayga ka maqan yahay weliba marka dhinac kalena laga eego xataa waa xukun baa dhacay maxay ahayd sheekadii meel fiican bay gaadhay laakiin waxaa dhacday inaan nan tirada igu dhahdo saameyn baa ku samaysay daadaa ku sameeyey marka waxaan u baahanahay in wariyaa ururada ninkayna la jooga waxaan u baahanahay in wariyaasha ay u arkaan inay tahay factor la marin karo tacadiyada si loo yareeyo ama loo joojiyo isla markaasina lagu tababaro qofka wariyaha sida uu u tabinayo sheekooyinka sababta uu ka duwayo sheekada siyaasadda aynu mikrofoonka u qaadanay siyaasiyiinta ka geyno doorkii saxaafadda si fiican bay isaga lagu hadashay dabcan oo waxay sheegtay in mararka qaar adoo isla hagaaji khibrad la-aantu ay keenayso inaad dhaawac geysato taa qudheedo inta badanba lagu eedeeyo mararka qaar marka laga hadlayo amba media ama ururada qudhooduba ay qayb ka yihiin ama dhanka sharciga aan loo eegin arrintaas ifraax baan dhankan kusoo noqonayaa ifraax waxay ka socotaa nafis ifraaxay marka ururada laga hadlayo arrintan dumarka ama tacadiyada marka laga hadlayo maxaa mashruuc looga dhigaa ama mar walba dadku ugu arkaan mashruuc ee si mutadawacnimo looga shaqeyn waayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta intaanan su-aasha ka jawaabin waxaan jecelahay inaan salaamo dhammaan dumarweynaha mudanta iyo marwooyinka caawa iskugu yimi munaasabadan aynu ku xusayno 16 days of activism wax la yiraahdo Englishta oo maaragtay markaynu af Soomaali haddaynu isnaano ku turjuma noqonaysa 16 cishe la qabto activity-yada ama wacyigelinaha ama maaragtay isu imaadyada lagaga hortagayo dhammaan tacadiyada ka dhanka jinsiga waxaan ku faraxsanahay in intiinan oo dumara oo mudan iyo marwooyin bale oo shaqooyin kala duwan masabyo kala duwan roolal kala duwan iyo maaragtay meelo kala duwan ka socda caawa halkan iskugu timaadeen si aan munaasabadan uga wada qayb qaadano aniga magacaygu waa Ifraax Axmed Xasan ka socota dalada Nafis waxaa loo soo gaabiyay Somaliland anti-FGM network anti-FGM in Somaliland waa dalada kaliya ee Somaliland ka jirta ee 20 sano ugu dambeeyay ka hawlgalaysay sidii loo joojin lahaa gudniinka hablaha dumarkuna u heli lahaayeen caafimaad dhameystiran su-aashay weydiisay walaashay waxay ahayd maxaa mar walba arrimaha dumarka loogu arkaa inay mashruuc yihiin sideeda banaanba bulshadeenu 20 sano u dambeeyay bay la qabsatay in laga hadlo wax la yiraahdo xuquuqda dumarka mar walba laga hadlo xuquuqda dumarka iyo hablaha dadkeenu waxay u arkayeen in laga hadlayo arrimo ay dabada ku hayaan dad gaala ah inay laga hadlayo arrimo ay dad dabada ku hayaan hay'ado in laga hadlo arrimo ay meel gelinayaan dadyow aan diinta islaamka haysanin mar walba xuquuqda dumarka laga hadlo waxa la picture-ka guud ee u soo baxa dadkeena wuxuu noqonayaa picture in dumarka guryaha laga soo saarayo in maaragtay dhaqankeena Soomaaliga la caayayo ama dhaqanka ay dadka Soomaalida leeyihiin loo sameynayo iimo laakiin taas maaha dhammaan ururada haweenka kuwa dhalinyarada iyo dhammaan civil society organizations ka wadankeena ka jira waxay u taagan yihiin sidii mutadawacnimo leh ay ugu shaqeyn lahaayeen bulshadooda waxa jira dadyow ka shaqeeya IDP-yada
goobaha dadka barakacayaashii degan yihiin kuwaasoo iyaguna ka qayb qaata dadaalada loogu jiro in mar walba tacadiyada dhaca ay soo gudbiyaan oo si volunteer ama si mutadawacnimo ah ku shaqeynaya mar walba si shaqsiya anagoo magacayga matalaya ama anigoo organizationka matalaya for example anigu waxaan u taaganahay inaan caawimo ka geysto qof walboon arko oo lagu tacadiyay ama tacadi loo geystay ama xuquuqdiisa bini'aadantinimo lagu ciyaaray marka maadaama oo ay nagu cusub tahay markaynu nahay dad inaga Soomaalida waxaan nahay dad reer guuraaya dad reer miya markaynu magaalooyinka nimi ee aynu ka doonay inaynu ka hadalno arrimaha xuquuqal insaanka aynu rabnay inaan ka hadalno arrimaha tacadiyada wax qariiba bayna la noqotay sababtoo ay tahay dhaqankeena waxa jira dhaqan waliba horta bulsho waliba dhaqanka ay leedahay waxa jira waxyaabo dhibaya bini'aadanka oo ku dhex jira maadaama aanu dhaqanku ahayn diiniyan ahayn ama aanu ahayn quraan samada ka soo degay ahayn uu yahay wax bini'aadanku iska samaystay taas waxay keentay marka kasta oo aynu ka hadalno tacadiyada ka dhanka jinsiga in dadkii dhaqanka ama odayaashii dhaqanku ay u arkaan inaynu shaqadoodii liddi ku nahay ama aynu dhibaataynayno marka intaas aan kusoo gabagabaynayo ifraaxaad iyo dhammaantay Lucky oo ah gudoomiyaha SWRC Somaliland Women Resource Center bal su'aashan ku socota Lucky waxaad u dhaqdhaqaaqdaan tacadiyada ka dhanka jinsiga ururahan halkan waxaad nagula wadaagteen dabcan prestation dheer oo 3 sano u jiray aad uga hadlaya tacadiyada ugu badan waxay ka dhacaan miyiga maxaa miyiga loo tagi waayay ama maxay ka hortaagan miyiga tagtaan oo sheekooyinkooda asoo report garaysa ay caasimada oo inta badan ay uga dhacaan arrimahan السلام عليكم دمانتي ود السلامية sida wanaagsan aad u soo ajiibteen aad waqti fiican oo la qaadateen aad iyo aad bad mahadsantihiin dhammaantiin haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaasi Somaliland Women Resource Center markaan anagu aasaasayna ama aanu sameynayna waxaan u sameynay uun hab tabaruca waxaan ahayn hablo isku tagay dhibsadayna wacyiga dumarka iyo halka uu taagan yahay waxaanna focus ku ahayn hablaha da'da yar ee dhiganaya jaamacadaha dhiganaya iskuulada sidii ay xaqooda u baran lahaayeen ay u garan lahaayeen muxuu tacadi yahay iyo hadduu tacadi ku dhaco sideebaad aad u report garayn karaysaan marka insha Allah waan gaari doonaa laakiinse at this time waxaanu ku eegnahay magaalada waxaanu soo dhaafi kari laanahayba iskuuladii jaamacadihii IDB-yadii magaalada ku yaalay insha Allah waan tagi doonaa markii noo gaadho mar labaad iyo mar saddexaad gabadha yar sacabka igu tuma dadka iyaguna maqalkooda naafada kaabay iyaguna fariinteena gaarsiinaysa dabcan oo u turjumaysa dadka maqalka naafada ka way ku faraxsanahay in iyaguna soo shaqeynayso iyagu qulooda qayb ka yihiin arrimahan oo inagala qayb qaadanayso ay farduus baan kusoo noqonaya wacyigelinahan ama 16 days ka ama mar kasta oo arrimaha dumarka laga hadlayo waxa dhacday sidan oo kale meel isugu nimaadno mararka qaar sidan si kay yara hooseysa baa dhacda oo inta meel isugu yimaado aan wacyigelintii loo baahnaa inta badan aan media la marin oo halka ugu weyn dadka lagu gaari karo maqal iyo muuqaalba ururada maxaa ka hortaagan inay arintan weyneeyaan oo ay media mariyaan channelska maadaama dadka tacadiyada la kulmaya ay Somaliland iyo Soomaaliya oo qaybo kala duwan ay ku sugan yihiin وسؤال في عن رنتين وحنا يحسسي شيء كوي بدنا ورع مركب لقاها اللي تعدي هبلا كل عي السوشيال ميديا ما توي الكشر ناي مركب إنه كهذا نسي عادي نرانا إن أنت تسوي حاس كل عي كومنت كوجه رأيك سوق قلب إحنا قناع بين بس شيء جيسا قالها وضعتها ولا قبلك ميل جرانا يا مركب وحلو أقل مشغولين يا يو حلقات يا قفان جرانا ساي يسوبين بقى أنا جيت أصوت شهر بينه وده عباي أنا مرة قالوا حوالي بيجاري فردوس تعدي أما مرة قالوا حوالي هذا وان فيمينيزم مرة كسان كله وان فيمينيزم كهاي تنبه أنا أبغى يقارنه ومجلس كتاشي كرايه وحنا كهلا وحشرة ما فهمتي مرة بدن عقبضها هبلها لك ما حكم ده أونلاين بولين كاسة كله أو كلمة بالسوشيال ميديا كسوديرين حتى هذا دور شر دمر هالدور أو حقبتي السوشيال ميديا كأمانته هرجيسوا ولا وده شو قبل السوشيال ميديا كود جناي توس بالقوي من الجورنا يا أدو حنا وين هاي ميانات كهذا محاك لا تشقيتها معلومة هواك ما تشقيتها
sida arrimaha haweenku yihiin wax xun ama ceeb ay yihiin soo idguma dhacdo Sagalay Sagalay markhaati way ii furtay Sagal toojeer maal uga odhanaya waxaan iska yaree nin fiican aad heshideen yaa haddii kale lagula hadli maayo Sagal Beldeq waxay inanta Somaliland ugu maaragtay followers ka badan social media 1 milyan bay maalin dhow xiraysaa haddii caawa mowduuca aan ka hadlayno social media dhigto 1 milyan maxay odhanayaan Sagal aad ugu tacadin baad ka hadashaa naasida ninku helimay sida aamus marka walaal ha social media caqabadaas horta ka taagan waxaan hablaha walaaladii caawa halka fadhiya ama inteena daawanaysa ka odhan lahaa ha u joojinina hana dhageysanina wixii sax ah u aragtaan ee cadaalada ee xaq ka hadla idinkoo si asluubeysan uga hadlayaan idinka laftirkiina dhinaca kale baasha ka istaagin sidii saxda ahayd oo degan oo lagu dhageysan karo uga hadla farduus qudheedana waxaan leenahay ka cabsan marka dhanka media noqoto xatirada marka lagu yiraahdo maalimada walba ka shaqeeyaan si xoojisay habla badan inta deerka jabisay ay kugu soo daydaan iyaguna ay isticmaalaan dhanka social media oo hoggaan u noqotaan rajeynina maadaama siraad ay matalayso initiative dhanka dumarka ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آديات بانو فرح سنة هاي إن منصبك آديات وقاليا عن دين كوي ما دون دين كلا قيب قلو وانا ديجا حالي أهان إنسان وقت الدنباني قال يسوع شيء شرر فربطنا وكلنا وانكوجري إما كلام بكلام اللي يجسوجيا مركا رمتي موضوع آديات وقاليا ويان runtii markaan imika hablaha dhageystay waxa ay sheegayaan oo dhammi horta waa dhibaato I remember markaan anigu bilaabeen Somaliland ka bilaabay waxa ahayd 1998kii baraduu imika dadku ay maxay dhagaha taagayaan baraduu 1998 marka aan ka hadlo inaan la kufsaday ilmo yar oo la kufsaday dhagaha faraha la gelin jiray waxa I remember maalin xitaa odaygayga Allah raxmee loogu tagay guriga la yiri wareed hadayna Saciid waxan ay ka hadlaysan baad ka joojisid oo igu yiri ina Saciid hada waxan ka hadlaysaa waa maxay the what is it waxa weeyaan aduu meed ogoshahay inantaada inaad tacaddi loo gaarsiiyo wuxuu yiri maya wasaan hadaba inantayda iyo inanta reer Somaliland waa isku mid marka taa loo geysanayo iyo taydu waa isku mid waa inaan sidaan taydu waad lahaa aan inta kalena u la hadlo marka waxa weeyaan in hamoodina inay tahay wax inaka inoo gaara so imika ma niraahno Europe way horumartay Mareykanku wuu horumaray Ingiriisku wuu horumaray marka ay noqdo maxay tacadiga dumarka loo geysto muu horumarin ilaa alaanka aynu maanta aynu halka fadhino dumar fara badan baan hadli karay shaqadooda iyadoo ku jira ba maxaa ahayd abuse-ka la gaarsiinaya qaar baa la oranayaa shaqada hadaa doonaysid ha waa inaad arrimaha kala dhalmaysid haddaanad dhammaynayn shaqada doonaysaa waa maxay waa meelaha aynu leenahay way horumaray haddana way ku jirtaa suuqa ma mari karayaan annagu markaanu dibadaha joogno habeenkii marka aanu suuqa marayno waxa weeyaan waliba xijaabkaasaa lagugu soo dabagelayaa waxa weeyaan inaad cidda kaa dambaysa cidda kaa horeysa I remember maalin anigoo London dhex maraya ba waxa maqlay chaqaf si yaro laakiin de yara aan ka wiswisay ilaah baan ku dhaartay qofkayga ma lugayn karaayo ma socon karaayo waxaan ku idhi 5 kan geliyay baan ku idhi waya marka hore hoostaan ka xaday nig markii dambena wallahi waan cararay markii dambe guriga waxaan imaanayoo hiiraagay masala guriga maxaa ku helay san waxaan garan waayay ma in badan baan Ingiriiska ka maqnaa oo cabsi fara badan baa iga gashay misaanka weyn masayina may ay maka cidna lama aamino marka waxa weeyaan in dhalinyarada midka kale oo aan markastana ilaahaba jirta berigii hore dad wanaagsan baynu nahay dad ixtiraam fara badan baynu nahay waxa laga yaabaa gurigii inay 15 inan ay ku soo xaroodaan maxay ahayd anigu marka aan aqal galay dibta xamar baan ku aqal galay laakiin markaan waqooyi u soo baxay berbera imi waxa gurigayga joogay malaha 15 inan oo eedo u ahay odaygu adeeru yahay oo halkaa wada seexan jiray 3 hablood ama 4 hablood oo kale baa wala ilaalin jiray inanku maskaxdiisa ma soo gali kareen
maba soo geli kareen inantaa walaashaa ee ku ag jiifta ama maqsinkaa ku jirta hunguree kuma jirin wuxuu ka ilaalin jiray inuu saxar ay ku dul dhacdo wax kale iska daayo alla heblaaya hurdo ee daaya heblaaya caynkana daaya maantana cid alla cid aad gurigaaga u aamini kartaa ma jirto waa mujtamaca sidii ay u xumaadeen maalin kasta baan waan idhahay waxaan idhahaa maxay ahayd habla haddaad leedahay ragga guriga soo gelaayo waa inaad ilaalisid sababta oo waxa weeyaan waynu xumaanay dadkii way xumaadeen maxay ahayd social media baa xumaaday telefishinkii baa xumaan laga daawanaya waxa weyn accesska xumaanta aad iyo aad u fara badan maanta TikTok baa jira oo imika aan idhahay yaa hadda Somaliland ka baangareeya waxa halkaa ka socda iyo waxa laga sameeyo wad istacajibaysa waxaad marmar oranaysaa dadku miyaanay islaam ahayn marka waxa social media baa farabatay oo xumaantii ku jirtay ay aad u farabadatay telefishinkii baa maxay ahayd markaad filim ka daawanaysid 120 wax oo xun uu kaaga soo baxaya oo aanad garanayn maxay ahayd halkay ka yimaadeen marka waxa weeyaan waqtiga bay waxa soo dhamina la socotaa waqti xun baynu ku jirnaa waqti la moodayna aakhir saban tahay oo adduunku gabaabsi wanaagkiisii iyo quruxdiisii iyo ay ka tahay baa la moodayna ku jirno marka hablaha waxaan oran lahaa hablo is ilaaliya intaad idinku is ilaalin karaysaa inta guryaha lana waxaan leeyahay inta guryihiina soo gelaysaa wanaag kasta ha ahaadaan abti iyo adeeri wuxuu doonay haadaan haddana taxadir baynu u baahannahay waynaynu taxadirno waayo maanta waxay xad ka goosatay maanta markay noqoto wacyigelin yes waa laydin qabsan waa laydinku caayay waa laydinku aflagaaday bad laakiin ajir baad ka helaysaa sababtood ajirka aad uga helaysaana waa maxay waxa weeyaan qof islaama oo walaasha ah oo aad badbaadisid oo ama af aad ku badbaadisid ama adin aad ku badbaadisid waxa weeye ama aad qoraal ku badbaadisay waxa weeyaan mid aad ajir aad ka yeelanaysid xagga Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadankeenu horta waa wadan qaniyo waa wadan wanaagsan laakiin inta aynu ka hadli lahayn mujtamaceena iyo caruurteena iyo sidaynu u horumarin lahayn xashiishadiyo taala khamrigiyo yaala wax walba oo yaala halkaynu dadka ka wacyigelin lahayn baynu siyaasad iyo qabiil iyo wax aanan naf lahayn aynu ku mashquulsan lahayn dhalinyaradu waxa wanaagsan inay mustaqbalkooda ay ka fikiraan maxaad doonaysaa inaad samaysaan maxaad doonaysaa inaad noqotaan halkeed doonaysaa inaad gaadhaan raadadan aynu dub ugu mashquulno qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel xisbigan iyo xisbiga iyo xisbigan waxaas alla nafay ku haysaa ma jirto we should be thinking about ourselves yourselves your future halka aad gaadhaysaan waxaad doonaysaa aad samaysid maalinta midna ogow waxa aad yara qariibka markaad istiraahid samee waa lagu qabsanaya maalintii I remember jaamacadda Hargeysa la dhisay ee la dhamaystiray baan nidhi waxaan doonaynaa in looga la barto marka looga waxa laga bilaabay jaamacadda Amuud oo kaliya Hargeysa may lahayn faraqa markii la furay in isnidi habluhu hadaba la soo geliyo hablihii maxay ahayd parents koodi ama waalidkoodi baa yiri maxaa ama marbaad lawyer noqonaysaa qareen noqonaysaa ma marbaad xaakim noqonaysaa naga fadhiista oo dub u celiyeen marka inaniba meeshii soo gali weyday ay wada inama noqdeen baan dabeetana bixiyaasha la hadlay waxaan 30 hablood oo ilaa ay qalin jibinayaan oo degree-gooda qaadanayaan aynu fan garayno maxay haydin baan doonaya waxoogaa bay ku qaadatay laakiin waa ii suurta gashay maalinta aan maxay hayd aan u hadlaayeen laha saasan doonayana waxa ku yiri culayska ifuulay ma malayn karaysid hablihii bay bambixinaysaa hablihii bay balaayo u horseedaysaa hablihii bay kareynaysaa maxageed ku wada ma qareen bay noqon karaan ma maxay hayd xaakim bay noqon karaan war waxay hablihii u sheegaysaa you can't imagine ilaa gurigeyga hooyigeygi baan ka seexan kari waaye odaygayga laygu diray oo maxaa waalidkay laygu diray oo cid walba laygu diray haddana laakiin wuxuu ahaa wax aan aad aan u ogaa inay Somaliland ay u baahan tahay waan helay fundingkii 30 hablood ee ugu horeeyay baan u gelinay
I think soddonkii 29 baa maxay ka qalin jabiyay inan kaliya mooyaane 29kii kala hablood way ka qalin jabiyeen oo waliba marks aad u fiican ay ku heleen maanta waa hablaha qareenada ugu waaweyn ee Somaliland jooga haddaanan maalintaa u dhabar adeegin oon ceebta iyo fadaaxadooda iyo hadalkooda iyo maxay gurigaygoon ka hadhsan kari waaye wallahi mar baan sir odaygeena wala uu kugu furi doona haddana aan u maxay dhabar adeegay bay noqotay inaan hablaha ka soo saaro oo ay maxay maanta ay qareen u noqdaan wax kasta oo cusubi wuxuu leeyahay culayskiisa everything ee cusubi wuxuu leeyahay culayskiisa human rights kuna waa culays badan yahay aad buu culays badan yahay waxaan kaga baxayaa sheeko yar oo idinka sheekayn doono berigii muxuuha waxay 2002 ma yahay 3gii meelaha baan markay maxay xaquuqul insaankii laga hadlay baan waxaan doonayaa inaan sameeyo the National Human Rights Commission, the Somaliland National Human Rights Commission. Walayla yaabay xukuumaddu markaa joogto waxay ku tiri nooyaha ma waxaad doonaysaa inaad civil society-ga lagu kicisid qoladii civil society-ga waxay yiraahdeen alla waxaad doonaysaa inaad maxay ahayd dawladda lagu xoojisid waxa igu noqotay wax cajiiba bal aduu commission dhan oo wadanka doonaysid inaad u soo kordhisid oo haddana dhinac walba laga garaacayo oo cid alle cid ku raacsan baanay jirin markii ugu dambeysay khayr Allah siiyay nin la oran jiray Asoowe oo ahaa wasiirka cadaaladda baan u tigi iyo maxay haydin wad garanaysaan xildhibaan indo iyo maxay xildhibaan Cabdilaahi Habane markaasaan ku yiri waryaale waxaan doonayaa inaan sameeyo National Human Rights Commission ka waxa weeyaan commissionka xaquuqul insaanka ee Somaliland markaasay yiraahdeen naheeda miyaal maxay u baahantahay sidan u baahantahay damalaha Somaliland ma qaadi karto waxaan war way qaadi kartaa waana u wanaagsan tahay shaqada waa laga helayaa ila sameeyo wasiirkii baa yiri ana u tagay madaxweynaha bal aduguna meel aanu bal samaysay on tusaale u soo qaadano noo sameey UNDP baan ku noqdo waxaan ku wariyaan waxaan doonayaa inaan xaquuq aan sameeyo the National Human Rights Commission dawladana inaan ka hayo muxuuha baarlamaankana aan ka hayo South Africa geeyo iga bixiya way igu qaadatay in badan waan ku guuleystay afarabtoodiba waan ka hayay South African tagnay Cape Town baan tagnay Johannesburg baan tagnay waxay soo arkeen National Human Rights Commission qiimaha uu leeyahay ee wadankana uu keenayo halkii baan tagnay waanu soo noqonnay madaxweyne ku xigeenka Axmed Yuusuf Yaasiin markaa ahaa baan ku yiri maxay hayd wana ka soo noqonnay waraaqihii oo dhan dhameynay waxaan doonaynaa inaad adigu qaranka noogu duugtid si uu dadka commission kaas uu noqdo commission taagan oo ebadkii taagnaada oo ay baarlamaanka iyo ay soo xulaan tiiba la noogu duugay after a very long time iyo dagaal xoog u badan inaad marmar aad maxay hayd indhayo aad u yeedhaan oo taan bal nooga waran baa fiican yacsowe al kulli xaal waanu ku guuleysanay maantadaan taaganahay waad aragteen commission kaas waa commission shaqeynaya waa commission la isku dilo anaa gudoomiye u noqonaya iyo anaa gudoomiye u noqonaya waa commission ay maxay ahayd Somaliland magac iyo sharaf u keenay laakiin markii aan sameynayay ilaa iyo Soomaaliya ilaa ay maxay ahayd ugu qabsatay sababtoo waxa laga soo diiwaan galiyay Geneva Human Rights Commission ka Geneva baa maxay ahayd laga soo diiwaan galiyay marka iyaga ceeb waxa ku noqotay the Somaliland National Human Rights Commission iyagu aanay haysan mid markaasay yiraahdeen at least waxa weyn UNT dib ugu noqdeen waxay yiraahdeen waa khalad waa in laanta laga tuuro oo Soomaaliya noqoto anna waa si aan haddaan shaqadayda ku waayayo wallahi inaan laanta laga goynay waxaan ku dagaalamayna ma waan laanta yara baasay
dallaantii baa loo daayay maanta wayna kaa commissionka dhan xaquuqul insaanka ah maxay ahayd weli laakiin waxaan sugayaa bal waxaan commissionka aan sameeyay ay gabadhi samaysay weli gabadhi gudoomiye kamay noqon ka waran gabadhi kamay noqon waa raggiiba isku haysto isku dilaaya marka waxaan idhi mar un baan jecelahay inaan arko commissionkaas oo ay gabadhi gudoomiye ka noqoto laakiin waxa weeye waa waxaynu u dagaalamayno waa waxa aynu baahana inaynu u halganno taasoo kalena idinka la idinka doonaya maanta garbahayagii berigaa garba maanu haysan annaka ismaqiiqaynayo ged meel walba gal inta halkan gal laakiin maanta idinka garba ah idinka maanta iscaawinaya hablaha maanta halkan fadhiya waa garbihiinii aad ku duulayseen idinkuna waxa tahay garbaha iyagu ku duulayeen without you iyagu wax ma noqonayaan without them idinkuna wax ma noqonaysa marka aynu ogaano inay markaynu gacmaha isqabsano we can achieve anything wax kasta waynu achieve karaynaa laakiin haddaynu kala baydhno oo tafaariq inagu yimaado meelna ma gaadhayno waxbana ma samaysanayno waxna ma qabsan karayno marka waxaan idinkaga tegayaa haddaan aniga oo Faadimo Siciid oo keligeeda aan intaa iyo in ka badan oo aan sameeyo how much baad u sleedihiin idinkuna waad achieve garayn karaysaan idinkoo sidaa iskugu duuban marka waxaan idinkaga tegayaa happy human rights day waxaanad ogaataan xabad keliya waxaan xabadda keliya idinkaga tegay waxa weeyaan the National Human Rights Commission-ku the Declaration of Human Rights waxa la sameeyay 1948 December 10 1948 waa waqtiyaashaas wuxuu ahaa waqtigii dumarka loo ogolaaday inay shaqeeyaan dumarka loo ogolaaday inay footeeyaan dumarka loo ogolaaday inay wax noqdaan imagine 1950 baabay dumarka xaquuqahooda inta badan loo soo rogay innakana waqtigii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee kitaabkeena quraanka uu soo degay baa maxay dumarka xaquuqo fara badan oo maanta aanay cadaankaasu lahayn ilaahayna siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu na siiyey inay gabadhi maxay ahayd ay hadday garan weydo ninkeeda ay ninkeeda iska furi karto Catholicska ama dadka cadaanka ee Catholicska looma ogolo inay dumarkooda furaan inheritance waqtigaas nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtiisa baa layna siiyey inaynu inaku dhaxal yeelan karayno dhaxli karayno waalidkeen gaaladu waxay yeesheen waqti aad iyo aad u dhow baa dhaxalka loo ogolaaday waxaayaha uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inagu manaystay waxa weeyaan iyaku kama hadlaan xaquuqda caruurta dabari dhaweyd weeyaan oo ay maxay haydeen baasgareeyeen innakana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka bilaabay xaquuqda caruurta gabadha dhali doonta markuu ninka guursanayo uu ilaahay faray u yidhi gabadh wanaagsan oo heldiina oo ilmaha soo korin karaysa waa inaad maxay haydeen aad guursatid xaquuqda caruurta halkaasaa laga soo bilaabay marka waxaad ogaataa diin islaama oo wanaagsan oo xaquuqdaadii oo buuxda ku siiyey baad haysataa laakiin raggu kuma ogole 120 daldalool aan garanayn meel ay ka soo qaadeen bay khasab doonayaan inay ku liqsiiyaan yaana lagu liqsiin wuxuu ilaahay ku siiyey iyo haybadu ilaahay ku siiyey iyo xaquuqdu ilaahay ku siiyey cid islaama kaama qaadi karto adigu iska qaadan mooyaan marka diintaada goostambeed ka dhigo xaquuqdaada oo dhamina halkaasay ku jirtaa adiguna ha ka baqanina inaad xaquuqdiina aad isu taagtid oo tiraahid this is my right waanan leeyahay ilaahay baana i siiyey quraankana wuu igu yaalaa meel kale oo aan ka doonanaynaa ma jirto